dadka diinta islaamka ka baxa oo arrimo mucjiso ah lagu arkay balse marka hore daawadayaal halkani waa Alfa Media Group haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelka ha ilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee barnaamijyada aan baahino waxa barnaamijka inii tabinaya ama in la socodsiinaya anigoo ah qadar cabsiye barnaamijka intiisa badan waxa uu ku saabsanaan doonaa dadkan soo socda كفارة هاي أنيقا كفاران أهاي ودنك كفار كان جو أنيقا وحانا هاي قف قالا أدر معان قف قالا هاي أنيقا معاوش لغا بلا قف قالا هاي أنا ودينتي إسلام كواكا بحي إن صومالي رقبان أوغا بحي درتيس إن مسلم نمئه أول وحان إذن كويري دينت ما إذن كتاقها بيهايد لكن هذا وحان إذن شيئا يا كريستيان بانهاي جوش مئه ايتست مئه كريستيان بانهاي جيسس بان آمن سنهاي sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa Iglan Saalax oo ku sigata in ay marto wadadii ay mareen maama milyuun iyo asxaabteeda inta badan baraha bulshada waxaan ku aragnaa gabdho Soomaaliyeed ee dhahaya waxaan diinta islaamka uga baxnay oo aan uga tagnay oo u gaalownay ragga Soomaaliyeed dartood sida aan wada ogsoonahay gabdhaha gaaloobay intooda badan markii hore inta ay diinta islaamka ku jireen markii bulshada dhexdeeda la fiiriyo ama bulshada la dhaqankooda markii la fiiriyo waxa ay ahaayeen dadka bulshada ugu dhaqanka xun uguna akhlaaqda daran taas oo aan ula jeedo diinta islaamka waxa ay ragga iyo dumarkaba fartay in ay guursadaan dad wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan isla markaasina salaada tukada doorashada guurka la doorto oo qof fiican la xusho markaad guursanaysid oo diin iyo akhlaaq iyo sifooyinkii kale oo wanaagsanaa oo dhan uu ugu xilanayo maadaama ragga la faray in ay guursadaan gabdhaha wanaagsan oo akhlaaqda wanaagsan sidoo kale dumarkana waxa la faray in ay guursadaan ragga mu'minaadka ah ee akhlaaqda wanaagsan waxa meeshaasi ku soo dhacaya ama meeshaas ka baxaya gabdhaha akhlaaqda xun iyo ragga akhlaaqda xun taas oo keenaysa in ay iyagu isguursadaan waxaan kala jeedaa gabdhahani gaaloobay markii hore waxay ahaayeen gabdhaha muslimiinta ah kuwooda ugu dhaqanka xun ayay kamid ahaayeen maadaama ay dhaqan xumaayeen sidoo kale waxaa jiray rag kale oo dhaqan xun ayaguna oo la mid ah gabdhahaasi maadaama kuwii wanaagsanaa ay isguursanayaan ee uusan jirin qof wanaagsan ee qof xun guursanaya waxa isku soo haraya kuwii xumaay sidaas ayayna kuwa xun isku guursanayaan gabdhahani waxa ay sheegaan raggii qabay oo soo guursaday in ay dhibaatooyin badan u geysteen sidaas darteedna ay diinta islaamka uga baxeen raggan ay sheegayaan oo ay leeyihiin dartood ayaan diinta uga baxnay diinta islaamka kama turjumi karaan sababtoo ah waa dadkii ayaga oo xun ay shalay isguursadeen sidoo kale waxyaabaha cajiibka ah ee la yaab kale ayaa waxa ay tahay oo Soomaalidu inta badan diinta islaamka uga baxdo waa qof oo macnaha gaaloobay isla markaasina diinta islaamka wax ka sheegaya in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam laakiin ay dadku ka fal celinayaan oo ay leeyihiin sidaas maahan walaal saas maahan marar qaar laga yaabo in dadka qaarkood ay caynayaan marka waxa jirta dad qabiil ahaan ugu hiilinaya oo qofkaasi qabiil ahaan ku difaacaya sida uu qabiil ahaanta ugu difaacayo qofkii ay halkaas isku baranayaan sidaas ayuu asaguna ku gaaloobaya inta badan boqolkiiba 90 dadka gaalooba waxa ay ku gaaloobaan inta badan ama ay diinta masiixiga ku qaataan waxa ay tahay qabyaalad ayagoo ku difaacaya qof kale ee nabi maxamed caayay dad comment ka soo bixiya dartood asagoo oo maaragtay ka fal celinaya ayuu ku tarax tagto ayuu wuxuu galaa oo maaragtay oo qofkii oo shalay qabyaalada ugu hiilinayay ayuu maaragtay raadkiisa raacaa waxaan ku bilaabaynaa maama milyuun markii ay diinta islaamka ka baxday arin mucjiso ayaa ku dhacday oo inta badan lagu arko dadka gaalooba waa dhibaato ay la kulmaan oo dadka marka hore gaalnimada ku dhashay waa ay ka duwan yihiin oo waa ay ridoobeen marka sidaas waxa gubaya diinta ayaa gubaysa oo maaragtay dhibaatooyin badan ay la kulmayaan sidaas ayayna u ekaadaan
hadda maama malyan waxaa isku fiirisaa sawirkii hore oo markii hore ay iska qaaday oo islaamka ay ku jirtay iyo nasteexada iyo markii ay gaalowday sawiraantii ay iska soo qaaday ama fiidiyoyaashii live-ka ay soo gashay marka siday u agtaa waa u jeedaan oo waa dhacdo la yaab leh oo cajiib ah bal u fiirso oo dhammaan dadka aad taqaanid oo gaaloobay ama gabdhaha ha ahaadaan ama ragga ha ahaadaan dhammaantood waxaad ku fiirisaa noloshoodii hore iyo midda dambe waxaad arkaysaa farqiga u dhaxeeya noloshooda hadda iyo midii hore ee islaamka iyo nasteexada tusaale kale ee fudud bal fiiri gabadhan sida ay u ag tahay bal waxaad raadisaa qof ama gabar Soomaaliyeed ee sidan u ag weliga ma aragtay qofku waa uu gubanayaa cariiri ayuu galayaa bal haddana midaan kala fiiri bal wajigeeda sidoo uu egyahay fiiri waxa ka muuqata cara Allah ayaa ka muuqata caradii Ilaahay ayaa wajiga ka saaran waxaad arkaysaa farqiga u dhaxeeya qofku markuu islaamka yahay iyo marka uu diinta islaamka ka baxo ee uu ridoobo farqiga u dhaxeeya waa kan hadii uu ku dhiman yahay waxyaabaha kale cajiibka ayaa waxa ay tahay arintan hadda aan soo wadno dad badan ayaa waxay uga baxeen diinta islaamka oo waa ay uga tageen ayaga oo difaacaya fikir qalafsan oo ay la yimaadeen hada tusaale ahaan gabadhan lagu magacaabo Iglan Saalax waxa ay sameysay barnaamij fanka iyo suugaanta la xiriira waxa lagu soo bandhigaa heesaha iyo muusiga nooc walba ay yihiin culum badan ayaa ka falcelisay oo ka waanisay oo dhahday barnaamijkan waxa waaye inaad hakisi isku day Iglan laakiin ayagoo taas ka falcelinaysa oo maaragtay difaacanaysa barnaamijkeedii xumaa ama qorshaheedii xumaa ay wax ku waday ayay waxay soo fariisisay nin sheekh isku sheegaya oo lagu magacaabo Sheekh Cali Raage wuxuuna u baneeyay heesaha Iglan Saalax inkastoo culimadu iska dhaafeen markay arkeen in ay heerkaas marayso intii ay uga sii dar lahaayeen iska way ka aamuseen laakiin hadii culimadu ku hadli lahaayeen oo arinteeda maaragtay la dabagali lahaay oo ninkan ay meesha soo fariisay ee culimo badan ka hadli lahayd waxay anagu aan aaminsanahay in ay sababi lahayd in inta diinta islaamka ka tagtay ay tiraado maaragtay waa kaasa culimada darteeda aan uga tagay marka su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay gabadhani hadda ma waxa ay ku doodaysaa arrin wanaagsan mase waxa ay sameysay arrin diinta islaamka ay xarimtay ay isku dayaysaa inay banayso hadhow qofka noocaas u dhaqmaya ayaa waxa uu leeyahay dad dartood ama rag dartood ama dad shakhsiyada dartood ayaan diinta islaamka uga baxay maxaa diidaya xumaanta aad sameynaysa in laga hadlo oo laga waaniyo go'aanka qalafsan waxa uu dhalaa guul darro Iglan Saalax hadda waa gabar walaasheena aad ay u wanaagsan tahay waa qof wanaagsan boqolkiiba boqol laakiin tusaale inaan u soo qaadano ficilkii xumaay ay sameysay ayaa u sabab ah dad badan oo go'aan qalafsan ay qaateen dartood diinta uga baxay ayaa jira marka sidaas ayaa u sabab ah inaan soo qaadano arintan ku saabsan Iglan Saalax ma ahan inaan Iglan Saalax meeshan ku fadeexeynayno ama aan wax ugu dhibayno sharafteeda waa gabar sharfan ee muslimad ah ee walaasheen ah barnaamijkan ku saabsan dadka diinta islaamka ka baxay waan sii wadi doonaa insha Allah waana joogteyn doonaa haddii ay jiraan waxyaabo aad la yaabtay oo maaragtay aad ku aragtay sida hadda in muuqaalkoodu isbedelo kale waxyaabo la mid ah qaybta commentiska ayaad nagula wadaagi kartaa waana channelka Alpha Media Group ayaana ka baahin doonaa insha Allah barnaamijka xiga waxaan uga hadli doonaa ragga gaalooba kan waxa uu ku saabsanaay gabdhaha haweenka ama dumarka gaalooba ee diinta islaamka ka baxay laakiin waxaan barnaamijka xiga uga hadlaynaa ragga ridoobay ee diinta islaamka ka baxay waxyaabo ama dhacdooyin cajiib ah ee aan ku aragnay ee ku dhacay markii ay gaaloobeen kadib من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد سداد مقليسين موضوع محاضرة وحو قيب كيهي محاضرة الشلي كسب سنيد
doorashada guurka la doorto oo qof fiican la xusho markaad guursanaysid waxaan shalay ka hadalay qaybtii ku saabsanayd inuu ninku doorto haweeney ama qof dumar ah oo wanaagsan oo diin iyo akhlaaq iyo sifooyinkii kale oo wanaagsanaa oo dhan uu ugu xilanayo insha Allah maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuca qaybtii labaad oo ah hadday tahay waxa guurka raadinaya qof dumar ah sidee bay ku dooran kartaa nin wanaagsan sidee ku dooran kartaa nin wanaagsan mowduucaas saddex qaybood ayaa insha Allah aan uga hadli doonaa qaybta koobaad oo ah muqaddima fi الموضوع موضوعan hordhac uu leeyahay oo madkhal ama u ah furfurasho mowduuca saad u fahna mowduuca iyo sifooyinka wanaagsan oo ninka wanaagsan loogu xisho iyo sifooyin dhowr ah oo laga digay oo culimadu ay ka digeen qofkii sameeya arrimahaas inaan la guursanin oo la yiriyaan la guursanin ninkii waxa sameeya ikhwaani waxaan ognahay marka ugu horeysa in an-nisaa shaqaa'iqu ar-rijaal dumarku raggay la mid yihiin dhinaca guurka marka la fiiriyo waa ragga jeexood waa ragga walaashood arintaas waxaa cadeeyay quraanku uu tilmaamay culimada muslimiintu way tilmaameen inay labada qof oo bini aadamka ah ay isku xuquuq yihiin haddaynan ahayn waxyaabaha qaar kood oo si gooni ah mid walba wax gooni ah loogu khaas yeelay wuxuu leeyahay imaam ibn jawzi inna an-nisaa shaqaa'iqu ar-rijaal dumarku waa ragga jeexood raggay ka mid yihiin bini aadamkii bay ka mid yihiin fakama anna ar-rajula tu'jibuhu al-mar'atu sida ninka dumarku u cajab galiyaan oo qof wanaagsan markuu arko uu u jeclaysto fakadalika ar-rajulu yu'jibu al-mar'ata saaso kale ninku asaguna dumarka uu cajab galiyaa waxa laga wada dumarka laftoodu nin ay la cajabaan oo ay rabto ay ku qanacsan tahay bay rabtaa inay guursato walidalika yaqulu Allah ta'ala ilahi wuxuu leeyahay walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ayagana waxa u sugnaaday oo dumarkii ah wixii ayaga laga rabay oo kale oo wanaag ah wixii ayaga laga rabay ayaa ayagana la rabaa in loo sameeyo oo ay helaan saxaabadii nabiga waxa qaar kood ka sugnaatay inay dhihi jireen waxaan isugu qurxiyaa xaaskayga oo aan marka aan aadayo ama guriga uu aadayo ama uu la kulmayo uu isu qurxiyaa sunnaashnaasha sida asaguba uu jecel yahay inay iska dhigto oo kale fiiri marka sida ninku markuu arko qof dumar ah ay u soo jiidanayso kadalika qofka dumarka ah rag way soo jiidanayaan walidalika min xaq almar'a dumarka haday arintaasu jirto waxa kamid ah xaqa qofka dumarku uu leeyahay an takhtara ar-rajula alladhi satuqasimuhu hayatahu inay doorato ninka ay nolosha la wadaagayso inay doorato ninka ay nolosha la wadaagayso nolosha kaliya ma ahana nolosheeda dhan ninka ay rabto inay ku hoos noolaato oo ay maamulkiisa ku jirto ila ilaahi ba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa yiri raggu ayaga dumarka mas'uulka ah ninkaas waa inay doorato waa nin ay la noolaanayso nolosheeda oo dhan